dahabka oo isbedel aad u weyn oo taariikhi ah in uu ku bilaabmo la filayo sababtana waxa weeyaan dowladda China ayaa waxa ay mamnuucaysaa laga bilaabo 24 bishan in dahabka si digital ahaan ah loo haysto ama laga trade gareeyo haddii aan af Soomaali ku fasirnana ay tahay dahabka in si hawa ahaan ah ay u haystaan shacabka ama ay u maalgashtaan taasina waxa ay ka saari doontaa dhaqdhaqaaqii aad u xooganay oo dahabka ku imaanaya marna uu hoos u dhac zaa'idka ah ku imaanayay marna sar u kaca zaa'id ah lagu arkay haddaba Chinaha tilaabooyinka uu qaadayo aad ayay u waaweyn yihiin uuna kula tartamayo lacagta dollarka 20 bil oo xiriir ah ay dowladda Chinaha iibsanaysaa dahab oo hal tan oo dahab Chinaha meeshii lagu sheego lacag kasta ayay duldhigaysaa Chinaha wuxuu isku diyaarinayaa qaabkii uu lacagta dollarka meesha uga saari lahaa dhanka kale dahabka iyo qiimihiisa labadii bilood ee la soo dhaafay dahabka isbedel aad u weyn laguma arkin oo hoos ay u dhacsanay 30% hoos u dhac gaarayo ayaa dahabka ku yimid sida aad la socoteen oo qiimaha dahabka uu soo gaaray 120 125 ilaa 130 waqti xaadirkana waa ilaa iyo 130 laakiinse wax weyn ayaa isbedelayo laga bilaabo bisha 8 ilaa iyo dhamaadka sanadka waxa la filayaa dahabka in uu aad u qaaliyo isha lagu hayo last update-ka like follow share thank you